6 qof ayaa ku dhimatay 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii kooxo hubaysan ay jidka u galeen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah kaas oo marayay inta u dhaxaysa deegaanka Gaxandhaale ee degmada Saaxo ee gobolka Mudug. Gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur ayaan arrimahaasi goordhow ka wareystay. waxa ka dhacday mashaqo gaari shacab oo maraya meel saaxay oo u dhaxaysa tuuro Gaxandhaale la yiraahdo ayaa waxa jidka u galay shufto 13 qof baa ku gaareen 6 waa dhimatay 7na way dhaawacantay. waya maxay ahaayeen shuftadaas? wallahi waxay ahaayeen dadku waxay dad Puntlandera saaxa ku tumooda u soo socdeen dadkuna dhanka kale oo koonfurta ah oo Soomaalidaas kale oo galmudug ku afirsatay ahaayeen shuftada meesha gashay. marka dadka dhintay maxay isugu jiraan ma shacaba mise waxa ku jira dhammaantood waa shacab gaari shacab oo caanoola ah oo rakaabka u kala qaada labada tuulo buu ahaa 4 rag iyo 2 dumar ah dhimatay wax ciidan ah oo hadii jiray ma jirin xuduudda Itoobiya ka yimid xuduudda Itoobiya ciidan kama yimaado adugu waa un xabada iska hubi waa dadkaas oo inkaarta ku dhacday oo waxay bixinayaan aan garanayn waxa ka imanaya gaarigu gaari nacayo ahaa oo saarnaa dadku tiyotooyinkan tuulooyinka ka shaqeeyo ahaa marka dadkii dhaawaca yiraahdaan dhintay xagee la geeyay dhimashadina dee meel tuulooyinkaas lagu aashay dhaawacina qaar baa la soo gudbiyay intii cusleed galay qaba waaga marka wala dabiib insha Allah xaaladdu waa marka deegaan ku sugan yahay wallahi uu deganaanshaan markay shacabka iyaga wiilal kale waa la hadlay waxba inay ka soo dhacaan